Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacay waa Yusuf, YouTube channelka daawaneysaan waa Nurami Travelers. Badanaa waxaan kusoo qaataa fiidiyoyaashan fiisooyin kala duwan oo Soomaalidu badanaa ay xiiseyso. Sababaha fiisooyinka loo diido iyo qaabab kale oo fiisooyinka loo xareysto ayaan kaga hadlaa channelkan. Maanta sida caadada ahayd waxaan idin wadaa fiiso kale oo aad iyo aad u muhiimsan oo ku saabsan Mareykan. Sida ognahay Mareykan waa lambarka labaad aan isleeyahay oo Soomaalidu ay aad iyo aad u jeceshahay inay aadaan. Lambarka koowaad kulli waa taqaanaan. Anigu lambarkayga koowaad waa wadamanka mid kamid ah, adigu kaaga waa kee hoos ku soo qor. Qaybtan oo aan Mareykan kaga hadlayo waxaa loo yaqaanaa CR1 spouse visa. sida ogtihiin Mareykanku wuxuu bixiyaa fiisooyin aad iyo aad u badan, dacwo ha ahaato ama dalxiis ama caafimaad ama waxyaabo badan ayuu bixiyaa Mareykanka. Laakiin dacwadu laftirkeeda waxaa loo yaqaanaa immigrant visa. Immigrant visa ayaa boqolaal xabo usii kala baxdo. Marka aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo oo kaliya midan loo yaqaano CR1 visa. CR1 visa maxay tahay? CR1 visa waa dadka isqabo oo isku dacwoonayo, nin oo naagtiisa u dacwoonayo ama naag ninkeeda u dacwoonayso. Waa dacwo tan caadiga aan naqaano wadamo kale la mid tahay, laakiin Mareykanku shuruudihiisa waa ka duwan yahay wadamanka kale. CR1 visa waa viisaha ugu caansan oo dadka badana ay ku baxaan. Visa kala jirto oo dadka isqabo ay isticmaali karaan oo loo yaqaano K1 visa. K1 visa videoga dambe ayaan kusoo qaadan doonaa iyo wixii ku kala duwan yihiin. Tan kaliya waxaan kaga hadlayaa CR1 visa. Waxaan kusoo qaadan doonaa videogan qaabka loo xareysto CR1 visa, meelaha oo processkaaga uu mari doono, sababaha viisaha loo soo diido, lacagaha CR1 visa ku baxo iyo markaad hesho viisaha wixii aad sameyn lahayd. US visa oo CR1ta qaab noocee loo xareystaa? CR1 visa saddex qeybood ayaa laga kala xareystaa. Saddexda qeybood way isla shaqeeyaan, waa process. Qaybta koowaad markaa kasoo dhamaato qaybta labaad u gudubta, qaybta labaad markaa kasoo dhamaato qaybta saddexaad ayaad u gudbaysaa. Qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa USCIS. waa meesha ugu koowaad ee dacwada kasoo bilaabato. waa xarun ku taala Mareykan. qofka kuu dacwoonayo ama adiga dacwoonayo waynaad meeshaas aad submission ku sameysaa documentiyashaada. documentiyasha la iska rabo waan ku sheegi doonaa wax yar kadib. USCIS waa first step, waa qaybta ugu koowaad, waa meesha ugu koowaad oo go-aankaa gaarayso, ama ku diidi karto ama ku ogolaan karto. USCIS markaa ka dhamaato waxaad u gudbaysaa, intaan u gudbayn qaybta labaad. USCIS waxaa loo xareystaa form loo yaqaano I-130. I-130 gaasaa buuxinaysaa. shuruudihii kale ayaad raacinaysaa oo hadda wax yar kadib aan kuu sheegi doono. Kadib waqti ayay qaadanaysaa. kulli waxaa la qiyaasaa inay qaadato 6 bil ilaa 8 bilood. Markii ay USCIS kasoo jawaabto viisahaaga oo shuruudihii dhammaan u dhamaystirtay oo successful submission aad sameyso, email bay kusoo diraysaa ama posta oo ay ku leedahay waad ku guuleysatay qaybtii koowaad. waxaa loo gudbiyey processkaaga NVC. NVC waxaa loo yaqaan waa National Visa Center. National Visa Center iyadana shaqadeeda maxay tahay? National Visa Center waa inay daba kacdaa USCIS wixii ay soo gudbisay, inay warqadihii dhan yihiin. waxay xaqiijinaysaa in formkii aad submit gareysay uu saxan yahay. waxay kale xaqiijinaysaa in warqadahaagii oo dhan ay dhameystiran yihiin si ay u gudbiso safaaradda oo aad wadanka aad qofka aad u dacwoonaysid oo ku yaalo. marka koowaad
case number ayay ku sameynaysaa. Case numberkaas waa caseka dacwadaada ay ku socon doonto ilaa aad visa ka hesho. mar walba oo aad dacwo xariisanaysid casekaas wuu ku daba joogayaa ilaa aad viisahaagii ka hesho. NVC waxay kale sameysaa in email ay kuu soo dirto ay ku dhahdo warqadahaaga wayna soo gaareen waana ku guuleysatay oo shuruudahaagii waa ay dhameystiran yihiin. kadib receipt ayaa lagu soo dirayaa ama bank statement bank details si aad lacag u dhiibto. lacagahaas gadaal baan ka sheegi doonaa. lacagta markaad dhiibto waxay sameynaysaa kadib warqadahaagii ayay isku aadinaysaa. warqadihii oo dhameystiran iyo rasiidyadii iyo waxay lacagta dham ku dhiibtay ee waxay u gudbinaysaa safaaradda wadankaas aad dacwada ay kaaga socoto. tusaale ahaan haddii dacwadu Kenya kaaga socoto warqadahaaga Kenya ayaa loo soo gudbinayaa, safaaradda ayaana la wareegayso. so qaybta koowaad waxaan dhahnay waa USCIS. USCIS marka kasoo gudubto waxaad imaanaysaa NVC, National Visa Center. National Visa Center marka kasoo gudubto waxaa lagu soo gudbinayaa qaybta saddexaad oo safaaradda ah. safaaradana iyadana go-aan ayay kaa gaari kartaa, way ku diidi kartaa viisaha, wayna ku ogolaan kartaa. safaaraddu interview bay qaadaa. interviewgaas iyo waxay qaadaa caafimaad oo aad ku maraysid meesha kugu dhow, xarunta kugu dhow oo caafimaadka lagu qaado. caafimaadka markaad ka gudubto kadib interviewgii aad marto then go-aan ayaa safaaradda kaa gaaraysaa inay viisa ku siiso iyo inay viisa kuu diido. haddii viisihii ku siiso sidaas ayaad ku baxaysaa, haddii lagu diidina appeal ayaa kuu furan. marka waa saddexdaas step, saddexdaas meel go-aan ayay qaadan karaan. qayb walbo waxay awood u leedahay inay viisahaga diido ama inay ogolaato. USCIS qaybta koowaad way diidi kartaa, way ogolaan kartaa. NVC sidoo kale way diidi kartaa, wayna ogolaan kartaa. qaybta saddexaad oo safaaradda ahne laftirkeeda go-aan ayay leedahay. marka USCIS waxaan dhahnay processkeedu wuxuu qaataa 6 bil ilaa 8 bilood. NVC idin meeqa qaadataa? NVC idin waxaa la qiyaasaa inay qaadato 3 bil ilaa 5 bilood, badanaa 4 bil macquul. marka processka oo dhan idin waxaa la sheegay inay qaadato 1 sano iyo bar. waa meesha ugu badan, way ka yaraan kartaa nasiib wanaag, laakiin 1 sano iyo bar inay qaadato ayaa la sheegaa. marka shuruudaha oo dacwada maxay tahay, warqadaha la iska rabo iyo shuruudaha maxay tahay. shuruudaha ayaan kuusoo koobayaa, waan bobsiinaya, sharxaad badan ma geli doono. haddii aad fahmi weyso oo ama mid kamid aad fahmi weyso waad isoo weydiin kartaa mar walba. shuruudda qaybta ugu koowaad waxaa waaye qofka ku dacwoonayo ama adiga dacwoona waa inaad ahaataa over 18 years old, 18 sano waa inaad ka weynaataa. qaybta labaad, shuruudda labaad waxaa waaye inaad ahaataa qof haysto sharci ama passport American ah, oo aad tahay citizen qof wadanka u dhashay, ama aad tahay permanent resident oo aad ka haysato green cardkii deganaanshaha meeshaas. haddii aadan labada shuruudoo kow ah kasoo bixin hawa ku fikirin baa inaad dacwooto, because waa labada shuruud oo aasiga ah ay ka bilaabato. shuruudda saddexaad oo meesha imaanayso waxaa waaye inaad income kaaga aad cadeyso, waa inaad shaqaysataa, shaqadaada aad cadeysaa. tada kale shaqadu waa inay ahaataa mid kugu filan oo aad cadeyn kartaa sanadkii intaasoo lacag ayaan helaa. waxaa jirto categories ama qeybo kala duwan oo fiisooyinka lagu qiimeeyo. qofka u dacwoonaya hal xaas oo kaliya lacagtiisa waa yar tahay. qofka u dacwoonayo xaas iyo caruurta iyada dhashay gooni u dhashay ama aad caruurta isku dhasheen haddii isla socdaan iyadana qiimuhu kor ayuu u kacayaa. marka inaad iska xaqiijiso income-kaaga inuu kugu filan yahay. income-kaaga haddii uu kugu filneen lacagta kusoo gasho xal baa lagu hayaa oo waxaa sameynaysaa affidavit of support wax la dhahayo. affidavit of support waxaa waaye qof kale oo familkaaga ama saaxiibka ama qaraabadaada ama qofka horeba ha ahaado ayaa dhihi karo anaa caawinaya qofkan oo familkiisa markuu u imaado anaa support gareynayo inta sano ay ku qaadato. qofkaas markuu imaado qasab maaha inaa caawiso, qofku wuu shaqaysanayaa, laakiin dowladda waxay ka fikiraysaa inuusan qofkaas noqon public charge. public charge waxaa waaye inaadan dowladda hadhow ceer u raadsanin, dadkii shacabkii aadan dhib u geysanin oo lacagtoodii aadan saf u gelin. marka intaas ayaa laga fikirayaa. public charge-ka waa waxa ay dowladuhu badanaa ay ka cararaan. marka affidavit of supportkaas qof kale ayaa kuu sameyn karo haddii adiga lacagtaada aysan kugu filneyn.
qaybta afraad waxaa waaye form I-130. formka I-130 website-yada ayuu ka buuxaa, safaaradda website-keeda ama USCIS website-keeda kulli waad ka helaysaa. kulli qof shuruudahan aan kusoo gudbinayo ma ahan in adiga sameysanaysid, waa inaad la kaashataa qof oo aqoon u leh, ama lawyer ha ahaado ama xafiisyo fiisaha ku takhasusay. inaad la kaashato waa muhiim, because processka oo Mareykan aad iyo aad ayay u dhib badan tahay, oo ma ahan wadamanka kale oo kale. wadamanka kale badanaa waxaan ku naqaanaa marka warqadihii aad isku aadisato hamar aad geyso waad ka hareysaa, laakiin Mareykan processkiisa aad buu u dheeryahay. saddexdii step aan soo sheegay wuxuu u baahan yahay attention gooniya, inaad fiiro gooniya u lahaato oo mar walba aad fojignaato, emailkaaga ka warqabto. mar walbana waxay kuu dirayaan shuruudo cusub, wax cusub ay mar walba kuu dirayaan. marka inaad qof yaqaano aad la kaashato waa muhiim. lamarka afraad waa form I-130. kan shanaad waxaa waaye marriage certificate. warqadahaaga nikaaxa inaad qabtaan waxaa wixii cadeynayay inaad ku darto application-kaaga, iyadana waa muhiim. waxaa kaloo ku dareysaa birth certificate. birth certificate waa dhalashadaadii, dhalashada qofka Mareykanka joogo iyo qofka joogo wadanka, qofka loo dacwoonayo, labadaba in lagu daro waa muhiim. waxaa kaloo muhiim ah haddii ay jirto divorce certificate. haddii aad horey u jiray nikaax oo horey aad qof usoo kala tagteen, ninaa hore ku qabay waa kala tagteen, ama naag baa hore u qabtay waad kala tagteen, inaad divorce certificate-ki aad ku darto waa muhiim. haddaa ka reebto oo hadhowna formkii aad ku buuxiso horey ayaan usoo guursaday, taas waxaa la dhahaa incomplete application, waana lagugu soo celinayaa. qaybta lixnay passport photos. sawiradan badanka waa ilooba markay meesha tagaan arkaa inay sawirada ka maqan yihiin. sawiradu waa very important. passport photos inaad iska xaqiijiso weliba size-ka saxda ah. Mareykan waxay qaataan 2x2, marka meelo oo sawirada lagu qaado inaad tagto oo sawirada aad iska saxdo. sidaan hore usoo sheegnay, sawiradu qeyb libaax ayay ka qaataan. sawir sax haddaa geeweyso oo fontigii iyo wax walba ay u saxan yihiin, size-kiisa saxan yahay, waa lagugu soo celinaya application-kaas. sawir keliya ayaa lagugu soo celinaya, marka inaad ka taxadirto waa very important. qaybta xigta, qaybta sagaalaad waa wedding photos. sawirada arooska inaad geyso waxay u noqonaysaa support fiican oo caddeyn ah inaad kulanteen, aroos aad sameysateen. waxayna aad iyo aad kaaga caawinaysaa inaad cadeyso nikaaxan ama arooskan aad sheeganaysaan inuu aroos sax yahay. waxaa og tahay immigration officer-ga ninka go-aanka kaa gaarayo wuxuu qiyaasayaa inuu arooskan been yahay, oo ama qarashaad la kala qaadanayo, ama la iscaawinayo, si kale la isku caawinayo, ama dad isla dhashay isku dacwoonayo. marka Mareykanku ama immigration officer-ga kan go-aanka kaa gaarayo kow wuxuu qiyaasayaa in arooskan oo been yahay. marka adi ayay kaa saaranta mas-uuliyad inaad iska saxdo oo aad geyso caddeyn walbo aad heli kartid, si keeskaaga u noqdo kees adag oo la aamini karo. qaybta 11aad waxaa waaye police certificate. police certificate-ka waa qofka loo dacwoonaya laga rabaa. taas waa clearance certificate. inaad wadankii dembi aad ka gashay in kale waa inaad soo cadeysaa. taas waa iska yara fududahay, waa la helaa. affidavit of support horaan usoo sheegnay, waa inaad cadeysaa qofkan inaad ka adag tahay qiimihiisa, qarashaadkiisa markuu imaado. qaybta ugu dambeyso waa form DS-260. form DS-260 waa markaa processka oo dhan aad kasoo dhamaato oo USCIS petition-kaaga soo approve gareyso oo soo ogolaato. NVC National Visa Center kasoo dhamaato application-kaaga iyadana soo approve gareyso, oo aad Mareykanka safaaradiisa wadankaas aad joogto loo soo gudbiyo dacwadaada. dacwadaas waa inaad haysataa DS-260. NVC marka kasoo gudubto hore waa inaad formkii aad ka buuxisaa intaadan safaarada waa soo aadin. formkaas DS-260 asigana kuley waad ka heleysaa website-yada oo safaarada Mareykanka ama website-ka NVC-da ama US, meel walba ka buuxaa. DS-260 ayaa loo yaqaanaa. shuruuduhu waa intaa oo aas-aasiga ugu muhiimsan. waxyaabo kale way jiraan oo aad ku dari karto si keeskaaga oo usii adkaado. shuruudahan waa isku daray shuruudaha laga rabo qofka
sponsorka ah oo dacwoonayo iyo qofka applicantiga ah oo loo dacwoonayo labada waa isku qabtay. waa shuruudo laga rabo marka kow intaadan dacwo furin inay diyaar ka ahaadaan ay miiska ku saarnaan karaan aad isweydiiso shuruudahan ma heli karaa intaadan dacwada bilaabin. marka waa very important inaad iska ilaaliso shuruudahan. waxaan rajeynayaa inaad iska ilaalin doonto oo aad qalad samayn doonin. hadda marka qarashaadka muxuu yahay, qarashaadka bixi doona because waa inaad ku tashataa dhihi kartaa markaa dacwoonayo waa inaan aqaanaa qiimaha igu baxayo, qarashaadka igu baxayo. qarashaadku waa badan yahay waxaana loo kala qaataa stepyo kala duwan. wax hal mar intaad jumleyso aad dhehaysid iga qabo ma ahan. qaybta koowaad aan horey usoo sheegnay oo USCIS ayay kasoo bilaabtaa dacwada. USCIS markaad petition kaga xareyso oo form I-130 aan sheegaynay processka uu kasoo bilaabanay aa xareyso, waxaa laga rajeynayaa inaad dhiibto lacag dhan $535. $535 waa application fee, waa codsiga koowaad lacagta kow aad ku dhiibtay. kadib waxaa u gudbeysaa NVC National Visa Centerki idana lacag bay rabtaa. markii aad dacwadu loo gudbiyo National Visa Center email bay kusoo diraysa ay ku leedahay lacagta dhiib. lacagta waxaa waayay iyadana laba qaybood oo loo kala dhiibaa. $365 oo loo yaqaano visa fee, waa lacagta viisaha. kadibna waxaad dhiibaysaa $120 oo ayadana ah affidavit of support fee. labadaas lacagood ayay qaadanaysaa National Visa Center. kadibna waxaa loo soo gudbinayaa safaaradda. intaada gaarin ka horna waxaa jirto lacag oo caafimaad aad ku maraysid. lacagta caafimaadka iyada laftirkeeda ma yara oo $300 baa la qiyaasaa. way ka yaraan kartaa wayna ka badnaan kartaa sababtoo waxay ku xirantahay wadanka aad joogto. laakiin ugu badnaan $300 intaan badana arkay inta kastamo aan la shaqeeyay $300 ayaa ugu badneed intaan dhiibnay. $320 xitaa waan arkay rajeynaya. taasna waa tii caafimaadka. kadibna waxaa u gudbeysaa viisihii in lagu soo siiyo. viisaha marka lagu soo siiyo intaadan bixin ka hor waxaa jirto lacag aad dhiibeysid. waana muhiim lacagta inaad dhiibto intaadan bixin ka hor si ay green cardkaaga diyaarku u noqdo. waa green card fee. green cardka lacagtiisa waa $220. qofka shaqada kuu wado oo Mareykan ama ha joogo ama wadan kale ha joogo waa inuu kaa dhiibaa $220 online-ka lagu dhiibaa. $220 waxay kaa caawinaysaa green cardkaaga inuu diyaar noqdo markaad Mareykan saa u tagto. macquul xataa in elboorka lagaa siiyo ama isbuucyo kadib adresskaagii oo qofka kuu dacwoonayo lagu soo rido. marka waa very important inaad dhiibto lacagtaas intaadan bixin ka hor. ugu dambeyntii waxyaabaha laga rabo inaad iska ilaaliso markaad fiisa walba xareynaysid waxaa waaye marka hore inaad iska xaqiijiso documentationka waa meesha ugu muhiimsan oo dacwadu lagu diido ama lagu ogolaado. shuruuduhu aad meesha soo bandhigaysid. dadkan waxay caabudaan aan dhihi karaa warqado ay aad iyo aad u xushmeeyaan. haddii warqadahaagii aad iska sixi weyso diidmadu waa automatic ayaan lagugu soo celinaya. marka shuruudahan kor kusoo sheegay marka hore iska xaqiiji. markii safaaradda lagu soo gudbiyo kow iska xaqiiji intaadan interviewga gaarin. kow inaad isdiyaariso adiga interviewgaaga inaad iska hubiso su-aalihii lagu weydiin lahaa inaad iska xaqiijiso. qofka kuu dacwoonaya adiga inaad iska warqabtaan. su-aalaha oo badanaa la isweydiiyo video dambe ayaa kusoo qaadan doonaa si aad uga faa'iidaysato oo su-aalahaas aad isku weydiisaan adiga iyo qofka kuu dacwoonayo. laakiin interviewgu inaad iska diyaariso waa very important. teeda kale waxaa muhiim ah inta interviewga la gaarin inaad iska diyaariso wax walbo oo interviewga lagaga baahan yahay. kow wayna caafimaadkii aad soo marta. caafimaadka waa qaybta ugu muhiimsan. interview lagama qaadayo caafimaad la-aan. labo wayna haystaa passport photo size. sawirka maanta oo dhan waan ku celinaa because dadka ugu badan oo aan ka caawino dacwada xafiiskan waxaa lagu soo celiyaa sawiradaas. marka waa emphasis ayaan saarayaa. qasab waaye sawiradaas inaad iska ilaaliso oo sawir saxa aad iska diyaariso waa muhiim. waxaa kaloo muhiim ah inaad iska diyaariso warqadihii aad applicationka ku xareysay oo dhan. qofka Mareykanka joogay warqadihii oo isticmaalo dhan in adiga koobi aad haysato
oo mar walba hal file ah ku wada wadato warqadahaaga oo dhan markaad interviewga aad gasho warqad hebelkeen waatana warqad hebelkeen waatan waa muhiim intaa dhihi lahayd warqada xafadan kusoo iloobay meel hebelan kusoo iloobay iska xaqiiji dadka badanaa waxaan arkay warqada qaar lagu soo celinayo hal file sameyso warqadahaaga dhan hal meel gasho si haddii keen lagu dhahbo aad horey kaga gudbin karto waxaa kaloo muhiim ah formkii oo DS260 aan hore kusoo sheegnay waa formkii dhan aad visa ku xareysanaysay marka inaad formkaas aad asagana wadato waa muhiim baasaboorkaaga dabcan ha iska iloowin markaad tagaysa meesha baasaboorka keen markuu lagu dhaho hore inaad ka soo bandhigi karto ayadana waa very important intaas ayaan maanta kusoo gabagabeynayaa intaan iloowin ka hor waxaa jirto dadka qaar markay dacwada furayaan ayagoo ah permanent resident qof deganaansho haysto oo green card haysto intay dacwadu socotane nasiib wanaag wuxuu noqday American citizen ama qof dhalashadii wadanka qaatay oo wadani noqday baasaboorka weyn qaatay markaasoo kale maxaa sameynaysaa dacwadu waa muhiim inaad u sheegto qaybta ay marayso dhahdo aniga American citizen ayaan hadda ahay sababtoo ah waxaa jirto xaquuq qofka wadanka u dhashay uu leeyahay uusan lahayn qofka aan wadanka u dhalanin oo deganaansho bas ka haysto marka haddii nasiib wanaag deganaanshaha aa hesho isla markiiba u sheeg haddee tahay USCIS-ta NVC-da ama safaaradda isla markiiba email u dir oo emailka waxaa raacisaa wixii aad wadani ku noqotay haddii dhalashadii aad heshay ama naturalization certificate mid loo yaqaano ama baasaboorkii koobigiisa inaad raaciso emailkaas aad dhahdo aniga hadda wadani baan ahay waxaa dhici doonto in processkaagii la fududeeyo la boobsiiyo xaquuq badan oo aad leedahayna inaad hesho haddii aad u aamusto xaquuqdaas ayaa kaa haraysa maanta waa intaa waxaan u boobsiiyey video wuxuu ahaa inuusan aad iyo aad u dheeraanin waxaan rajeynayaa macluumaadkii looga baahnay in visa la xareysto inuu intaas yahay oo aad iyo aad ku caawin doono oo iska ilaalin doonto insha Allah haddii aan wax ka tagay waa isoo sheegi kartaa haddii fikrad iga dhiman tahay waad igu soo biirin kartaa haddii aad su-aal qabto sidoo kale isoo weydii waan kaaga jawaaba insha Allah sida caadada ahayd fadlan ha iloowin inaad subscribe dhahdo aad la wadaagto asxaabtaada dadka dacwada xareysanayo ama dadka boofiska haayo like na dheh waa mahadsan